kooxo hubaysan ayaa xalay guddoomiye waaxeed waxa ay ku dileen magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Guddoomiye waaxeed kala dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Sheekh, waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaano magaalada Garbaharey. Guddoomiyaha ayaa xilliga la dilayay ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalo xaafadda Xaashiweer ee duleedka magaalada Garbaharey. Kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday. Waxaa halkaasi gaaray ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya oo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxihii geystay dilkaasi.